السلام عليكم. waxaan rajaynayaa muuqaalkan kadib in ciddii ku imtixaanan fiirsashada muuqaalada galmada ay dib dambe u daawan doonin insha Allah. ka istaagidda fiirsashada muuqaalada galmada ma ahan arrin doorasho ah ee waa mid qasaba haddii aad rabto inaad ku noolaato nolol dhadhan leh. maanta waxaan garaacaynaa albaabka mowduuc aad u halisa oo aan wax badan ka labalabay ka hadlidiisa. waa mowduuc aanan la iska indhatiri karin. waa mowduuc waxyeeladiisu ka khatarsan tahay khatar waliba. waxaan ilaahay ka rajaynayaa mowduucan kadib in cid walba oo ku imtixaanan fiirsashada muuqaaladaas ay ka istaagi doonto. waxaan mowduuceenna uga hadlaynaa khatartiisa iyo waddooyin aad raacdo si aad uga harto waddada filimadaas halaagga. ku soo dhowaada mowduuceenna maanta. aan ku bilowna kelmadahan ka soo baxay afka dad ka istaagay fiirsashada muuqaaladaas. inta aanan ka istaagin fiirsashada muuqaaladaas noloshaydu waxay ahayd mid aad u qaraar. habeenkii soo jeed, maalintii caajis, wax go'aan ah ma qaadan karin. waxaan ku jiray god mugdi oo aanan ka bixi karin. noloshaydu waxay ahayd mid xiran oo aanan dhaqaaq lahayn. markaan ka istaagay fiirsashada muuqaalada galmada waxaan awooday in aan xakameeyo tasarrufaadkayga. waxaan dareemay kalsooni in aan nahay qof bani'aadama oo qiimo leh. in aan nahay qof nolosha u dhadhamayso. mar walba oo aan soo xasuusto noloshii aan ku jiray illin ayaa iga qubato. waxaan ku jiray god mugdiya. waxaan ahaa addoon xarig ugu xidhan shayddaanka waxa uu raban uu ka sameeyo. qodobka ugu weyn ee aan dareemayo waa xorriyad. in aan xoroobay. in aan ka fogaaday silsiladdii xumaanta. waa kelmado ka soogay qalbiga dad badan oo ka badbaaday godkaas madow. waxay la mid yihiin sidii qof mukhaadaraad cuni jiray oo ka soo badbaaday. fiirsashada muuqaaladaas waxaa lagu tilmaami karaa god mugdiya. mar walbood hoos u sii gasho waxaad ka sii fogaan isha iftiinka. waa silsilad aanan dhammaad lahayn oo shallayta iyo halaaga. waxaa dhimanaya dareenka qaybta abaalmarinta maskaxdaada. qofka inta uuna bilaabin fiirsashada muuqaaladaas waxaa kicin dareen ugu filan inuu arka keliya jirka jinsiga ka duwan rag ama dumar ku yahay. laakiin qofka markuu dhex gala daawashada muuqaaladaas kuma filna kicinta dareenkiisa xitaa inuu arko jir qaawan. wuxuu raadin muuqaalada ugu xun sida dad badan oo samaynaya arrinkaas. 2 qofood dumar ah, 2 nin. waxaa dhimanaya dareenka maskaxda xitaa nolosha caadiga in wixii cajab ah ay cajab la noqon waayaan. dhacdooyinka xunxun inuu qofku waxba u arag oo ay la noqdaan wax dabiici ah. haddii aad isleeday waxaad iska dayn markaad guursato, haddaba waa dhalanteed iyo wax aanan soconaynin. dadka muuqaaladaas fiirsada markay guursadaan ayaa waxaa u bilaabanaya silsilad kale oo fashil iyo shallayta ah. intii aan mawduucan diyaarinay ayaan daawaday muuqaal nin ajnabi ah oo ka sheekaynayo dhibaatada uu ka soo maray daawashada muuqaaladaas. wuxuu yidhi, waxaan guursaday gabadhii aan jeclaa, laakiin haba yaraatee dareenkii ayaa ikici waayey. waxaa dhimatay maskaxdiisa qaybta dareenka. wuxuu u bartay muuqaallo kala duwan. daawashada jirka dumar la soo xulay, make ab loo mariyey, wax jirka ifinaya lagu malaasay, cod aanan jirin loo yeelay. niyaddiisa sidaas ayaa ku barogaraamsanayd. haddaba gabadhii uma dhadhamayso. wuxuu raadin wixii beenta ee uu arki jiray oo ah wax ka fog nolosha dhabta. sidoo kale dumarka fiirsada muuqaaladaas arrinkan oo kale ayaa ku dhacaya iyagana. waxa ugu halisan ee ay ka cabanayeen dadka xaasilayaasha rag iyo dumar ee musiibadan fiirsado waa isbarbardhigga noloshooda dhinaca sariirta iyo muuqaaladii galmada ahaa ee ay arkeen. marka koowaad waxaa fiican inaan ogaanno muuqaaladaas in ay soo saareen shirkada si ganacsi ah. wixii ganacsi ahna waa la qurxiyaa, waa la dhaldhalaaliyaa si ka fog waaqica dhabta. ninkan hadalkiisa kor ku soo xusay wuxuu yidhi, guurkaygii fashil iyo oohin ayuu ku dhammaaday. gabadhiina waan kala tagnay. laakiin kadib markaan caqligayga dib u soo ceshaday oo aan go'aan qaatay oo aan mar labaad guursaday, maskaxdaydiina ka baxeen muuqaaladii xumaa, ayay ii bilaabatay inaan dareemo nolosha dhabta. dumar badan oo ah kuwa jira muuqaaladaas oo ka soo baxay godkaas mugdiga ayaa ayagoo ooyaya warbaahinta Maraykanka uga warramay xaqiiqada beenta ee la socota muuqaalada galmada, sida codka beenta, neef gurka aanan jirin, oohinta la sameeyey,
qosalka beenta waxay raaciyeen in dumarka iyo ragga arrinkaas sameeyo ay ku nool yihiin nolol jaxiima codadka la maqlana ay yihiin wax la dul saaray oo aanan jirin haddaba sidee qofku uga istaagi karaa fiirsashada halaagaas waxaa fiican marka hore inaan qiimayn ku samayno ama imtixaan yar xaaladda qofka inta aanan sheegin waddada ka istaagidda waxaa laga yaabaa in qofku isku qanciyo in waxaanay yihiin wax sahlan markuu go'aansadan iska dayn doono waana arrin xaqiiqada ka fog khabiir ku takhasusay xiriirka qoyska ayaa sameeyey imtixaan ka kooban dhowr su'aalood oo uu ku caawinayo dadka ugu imaada xaruntiisa ee rabo inay ka istaagaan musiibadan bal fiiri waa cudur rasmi ah in qofku isbitaal u aado siduu uga istaagi lahaa daawashada muuqaalada galmada imtixaanku wuxuu ka kooban yahay dhowr su'aalood wuxuuna qiyaasayaa heerka qofka uu joogo sida in aad u baahan tahay waqti dheer si dareenkaada u kaco in aad iska caabin karin dareenka ku leh daawo inta muuqaale qofku fiirsado maalintii ama isbuucii natiijada qofku sameeyo kadib daawashada sida waxa lagu magacaabay istinmaaga in qofku gacantiisa adeegsado khabiirkaas wuxuu natiijo ahaan u helay in qofku maraayo marxalado kala duwan inta uuna dhex maquuranin daawashada muuqaaladaas marxaladda in qofku si kooban u arko muuqaaladaas waqtiyo kala fogfog niyaddiisana ka bixin kadibna u daawado si ah bal waxaan fiiri waxa ay yihiin oo ah bilowga halaagga waxaa ku xiga heerka in qofku inta badan uu ku fikiro rabitaanka daawashada muuqaaladaas niyaddiisana ku jirto arrinkaas heerka ku xiga oo ah bilowga halaagga oo ah in qofku fiirsashada muuqaaladaas uu aad u dhex galo habeen iyo maalina ku fikiro marxaladdaas qofku wuxuu gaarayaa heer uu iska waayo dareenka waxaan in ay dembi yihiin iyo walwalka sidii qof daawanaya filim dokumentari ah ayuu u noqon taasoo ah in waxaan ay u noqdeen wax dabiica oo noloshiisa ka mid ah heer wuxuu gaarayaa uuba u arko daawashada in naxadinta iyo murugada uga baxo sida qofka markii soo wajahdo murug iyo arrin adag in uu u cararo daawashada muuqaaladaas kadibna dareemo degganaan haddaba marxaladdaas qofkii gaara waxaa gubtay oo eber noqday dareenkiisii dabiiciga ahaa waxaa dambas noqday qofnimadiisii laakiin fursadda in uu dib u soo nooleeyo weli way furan tahay oo ah in uu ilaahay u noqdo inuu alla gacmaha u taagto in uu illin iyo oohin afka furto ilaahay toobadda waa aqbalaa in aad go'aan adag qaadato oo aad qirata halaagga iyo xumaanta nolosha aad ku jirto ilaah weydiisay inuu kugu gacan galo ka bixidda godkaas madow يا صريخ المكروبين يا صريخ المكروبين يا مجيب المضطرين اكشف همي وغمي وكربي فإنك ترى ما نزل بي وبأصحابي ترى ما نزل بي وبأصحابي haddaba qodobadan raac si aad uga istaagto daawashada muuqaaladaas qodobka koowaad in aad fadhiisata meel deggan keliga si rasmi aan isaga dhaadhiciso in waxaan ay yihiin xaaraan in ay tahay macsi aad u weyn in aad wax ilaahay reebay fiirsanayso isweydii anigoo muslim ah oo 5 salaadood tukanayo sideen u fiirsan muuqaallo galmaa oo ay sameeyeen dadka kuwa ugu xun dadka sameeya muuqaaladan xitaa karaamay ixtiraam kuma lahan waddamadaas galbeedka waa dad layasa oo aad u xun haddaba isweydii anigoo ilaahay muslimiga dhigay i karaameeyey sideen waxaan u fiirsan maskaxdaada dib uga shaqaysii qodobka labaad laabidda aragga waxaa laga yaabaa in markii lagu dhaho aragga ka laab waxa xun in arrinku kula yahay wax iska caadiya ama micno guud wax sahlan aragga laab laakiin aragga inaad ka laabto xumaanta waxaa ku jira faa'iido aad u weyn kelmadda zakaa maxaa laga wadaa waa ziyaado iyo barako zakada qofku uu bixinayo waa barako xoolihiisa ilaahay ayaa u barakaynayo haddaba aayadduu ilaahay uga hadlay laabidda aragga bal micnaheeda wax yar aan si fiican u dhuuxno ilaahay wuxuu yidhi asagoo mu'miniinta ku boorinaya inay aragga laabaan
kuna soo dejiye aayaddaas rasuulka muxamede inuu mu'miniinta u sheego aayadda oo ah qul lilmu'miniina yagudduu min absaarihim wayaxfaduu furuujahum daalika askaa lahum ina allaha khabiirun bimaa yasnacuun waxaan ola jeednaa kelmadda daalika askaa lahum askaa u baraka badan u faa'iido badan ilaahay micno la'aan iskama sheegin kelmadda zakaa waxaa la ogaaday daawashada muuqaalladaas maskaxda in ay gubaan burburiyaan dambas ka dhigaan laakiin waxaa roob u ah oo ubax iyo doog ka soo bixinayo ka istaagidda feerinta wixii ilaahay xarrimay azakaa faa'iido xitaa waxaa la dhahaa ardada iskoollada dhigto jaamacada qof kastoo wax baranayo haddii aragga uu ka laabo wixii xun oo ilaahay xarrimay waxaa barakoobaya fahankiisana wuu kacayaa ama fahan fiican ayuu ka helayaa waxa maskaxdaada dib u dhalinayo waa inaad ka istaagto fiirsashada waxaas qodobkaas ugu muhiimsan waddada ka istaagidda daawashada galmada markaan ka soo tagno aan u imaanno tijaabooyin dad ka istaagay iyo takhaatiir iyo khubaro ku takhasustay ay sameeyeen oo ah sidii qofku uga istaagi lahaa daawashada aafadaas tallaabada ugu horraysa ka caafimidda daawashada muuqaallada xunxun waxay u baahan tahay waqti mas'uuliyad run iyo go'aan adag kitaab uu qoray nin lagu magacaabo Larry Wondi oo uu uga hadlaayo khatarta daawashada muuqaallada xunxun uguna magacdaray dabinka daawashada filimada xunxun wuxuu yidhi qofka markuu ku fikiro ka istaagidda daawashada muuqaalladaas maskaxdiisa waxaa ku loolami laba hadal oo ah mid leh waxaan waa khatar ee iska daa daawashadooda iyo mid leh maya waa wax dareen raaxa la keenaya ee ha ka istaagina daawo wuxuu leeyahay qoraagu labadaas hadal qofkii aanan go'aan adag lahayn waxay ku keeni in uu fashilmo haddaba labadaas hadal ama labadaas fikir ee maskaxdaada ku jira isburinaya waxaa looga takhallusi karaa in aad dejiso istaraatiijiyaddan soo socoto aad raacdana si aad uga badbaaddo insha allah soo qaado warqad iyo qalin kadibna diiwaan geli waxyaabaha xunxun ee aad ka dhaxli karto daawashada muuqaalladaas sida murugta caajiska fashilka allacaasinta maskax gubidda kadibna warqaddaas meel dhig aad ka arki karto ama ku kaydi meel aad ugu yaraan dhowr mar arki karto maalintii si aad u xasuusato mar waliba xumaanta arrinkaas sidoo kale soo qaado warqad kale kuna qor faa'iidooyinka aad helayso ka istaagidda daawashada muuqaallada xunxun sida akhlaaqda wanaagsan alla ka baqidda caafimaadka firfircoonida labadaas warqadood ee ah midda aad ku qortay natiijada xun ee aad ka dhaxlayso daawashada iyo tan kale ee ah natiijada wanaagsan ka istaagidda daawashada ka dhig istaraatiijiyad ujeed fog leh oo aad uga istaagayso daawashada halaagga filimada galmada tallaabada labaad oo ah mid camali ah ama ficil ah kow bii'ada in aad ka baxdo bii'ada kuu kallafayso daawashada waxaana ugu horrayso cidlada in markuu ku qabto dareenka ah daawashada aad ka baxdo cidlada oo aad u tagto dad sida inaad la sheekaysato xitaa inaad muran gasho si dareenka kaaga baxo ayaa kaaga faa'iido badan qodobka ugu weyn ee keenaya in qofku daawado waa keli ahaanshiyaha haddii dad kula joogaan waxaa yar in aad daawato haddaba haddii ay saaxiibadaa yihiin kuwo aad si wada jir ah u daawataan waxaa la gaaray wakhtigii aad beddeli lahayd saaxiibbadaas noloshaada diintaada karaamadaada caafimaadkaada dadnimadaada ayaa ka fiican saaxiibbadaas ama inaad si wada jira u qaadaan waddada wanaagga weliba aad ayay u fiican tahay in aad si wada jir ah ugu heshiisaan hanuunka haddii ay jiraan cajalado c d ama moobeelka ay kugu kaydsan yihiin in aad ka takhallusta muuqaalladaas burburisana wax walba oo ku soo xasuusinayo noloshaas mugdiga ka takhallus waxaa lagu talinayaa in aad ku beddesho samaynta sida isboortiskoo kale in aad orado socoto kubad ciyaarto dhaqdhaqaaqdo waxaa fiican in waalidiintu ay la socdaan xaaladda carruurta 15 ilaa 19 u dhaxaysa dhallinyaradaas waa marxaladda ugu daran ee inta badan canugu raadiyo wax dareenkiisa kicinayo noloshuna ay u tahay bilow iyo waxyaabaha inuu baaro
inuu canugu qolka isku soo xiro markuu kombiyuutarka ama moobeelka isticmaalayo waa arrin shaki keeni karo. canugaada intuu halaagsami lahaa gacan ku sii in uusan waxaas baranin. qodobka ugu muhiimsan, ilaahay wuxuu noo furay guur xalaal ah oo qofka dareenkiisa si xalaal ah u gudan karo, wiil iyo gabarba. guurku waa wax aad muhiim u ah, waana arrin fiican. rasuulka dhallinyarada wuxuu kula dardaarmi jiray in ay haddii ay awoodaan wax guurka lagu bixinayee yar in ay guursadaan. qofkii awooda waxa yar ee lagu bixinaya arooska ha guursado. man istataaca minkum albaa'ata falyatazawaj. guurka xalaasha ee labada qof is-ixtiraamayaan, is-jeclaanayaan waa waddada ugu horraysa ee liibaanta adduunkan. dhinac walba noloshaadu waxay noqonaysaa mid horumarsan oo aanan laga sheekayn karin. waxaa jira khidad ay samaysay hay-ad carbeed oo ah in gacan la siiyo dhallinyarada, wiilal iyo gabdhaba ee ku jira mugdiga daawashada muuqaaladaas, oo ah khidad 90 maalina. in qofku go'aan adag qaato inuu sabro muddo 90 maalina uusan daawanin muuqaaladaas. haddii ay 90 maalin u dhammaato qofka asagoona daawanin muuqaaladaas, waxay ka dhigan tahay qofkaas inuu cagta saaray waddada nolosha iyo ka bixidda mugdiga xumaanta. ugu dambayn, waxaa ku hor yaala 2 waddo, khiyaar kalena ma jiro. inaad ku sii socoto waddada halaagga oo aad noqoto qof muuqaal ahaan nool laakiin meyd ah, iyo inaad doorato waddada badbaadada aakhira iyo adduunba. haddii aad u aragto muuqaalkan inuu dhallinyaro badan garab siin doono, fadlan sii gaarsii. intaas ayaan ku joojinaynaa maanta. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.